Okay. Videogan aan daawanay videogan waalan ee adduunka dadka jooga oo dhan mucjisada ku noqday. Waa video Donald Trump uu soo dhigay baraha bulshada. Marka videoga wuxuu ku bilaabanayaa burburkaas aa ujeedid oo ah burburka ay Israel u geysatay Gaza oo dhulka ay dhigtay. burburkaas ay Israel ay u geysatay kadib ayaa videoga waxaa lagu tusayaa haddaan mar kale fiirino videoga wuxuu lagu tusaa ilmo yar oo gacanta la wado iyo dhulkii isbedelay oo la qurxiyey. Okay, yaa ilmo cararaya fiiralkan dhulkii oo la qurxiyey oo la bedelay. Marka waa waxyaalaha stupidnimada ah oo adduunka dhan tusay Maraykanka in uusan ahayn Maraykankii la ogaan jiray. Maraykanka ma aha siduu Maraykanka ahaa waagii hore. Maraykanka u dhamaatay. Madaxweynahan waxa ka dhaadhacsan ama waxa laga dhaadhiciyay in uu la wareegi karo Gaza oo kadib uu isaga uu dhisan magaciisa xataa uu la bixi karo Trump Gaza. Dhageysaya waa Trump iyo Gaza. Trump uu lahaayo kale oo markaas uu ka dhisayo hoteelo iyo real estate maadaama isaga uu real estate uu ka yimid. Odaygan waxaa moodaa maadaama uu aad u lacag jecel yahay, maadaama uu siyaasadda wax weyn uusan ka aqoon, adduunkana hadda istusa in siyaasadda wax weyn uusan ka aqoonin, waxaa arkaysaa in uu yahay ninaan waxbaba ogeyn. seebuu ugu malayn karaa Maraykanka inuu iska qaadan karo Gaza? Israel oo la dagaalamaysa intaas oo hub kasta oo Maraykanka uu siin karo uu siiyey oo ay ka reen weysay. seebuu ugu malaynayaa in isaga intuu meesha tago uu dadka dhulka deganaa uu ka raro watu u tagay Jordan iyo Egypt yiri qaata dadka Gaza degan dhulkiina mataqaana boos ka siiya si u degaan halka waa qurxinaynaa waa wanaajinaynaa. Kabacdi wuxuu yiri markaan qurxino wanaajino ma soo noqonayaan kulaha dhulkooda xataa kuma soo noqon karaan. muwaaliya caqligaas waxa la isweydiiyey xataa haddaa ka dhaadhicin lahayd dadka Gaza degan haddaa ka dhaadhicin lahayd waa idiin imaanaynaa dhulka mataqaan maxaa la idinla dhisaynaa hoteelaha ka dhisaynaa ma fahantay Maraykanka maybe wax idinla yeelanayo ama idin waardiyeynaa ma fahantay waa la gartay. maya wuxuu leeyahay dadka dhulka degan dhan Falastiiniinta Gaza degan waa rareynaa waxaa geenaynaa wadamada kale u dhow saad arkin Maraykankaa la wareegayo isaga reerkiisaa la wareegayo hoteelo magaciisa wata Gaza Trump ayaa laga dhisayaa bilmathal oo kaleeto. videoga meesha ugu dambeysa ha fiiri waxaa laga wadaa Elon Musk. Okay u kaaday sheekadan fiiriya halkan fiiriya waa naago gar leh subxaanallah naago niman wejiga ka ah oo laakiin naaso leh oo nikinayo. waxaan fiiri madaxweynaha Maraykanka soo dhigay naago niman oo naaga ah oo naaso leh waxaan dhan waxa lagu sameeyey computer. Of course waa ognahay in computer lagu sameeyey laakiin madaxweynihii Maraykanka ayaa soo dhigay waxaan saad arkin oo waa kaas isagii lacaga cod ka soo daadanaysa Trump Gaza. Okay u kaadi Trump Gaza ku soo noqo horta u kaadi fiiri isagii kii yuhuudka ahaa. Okay Trump Gaza Trump Gaza meeshii loo bixiyay okay Trump Gaza okay lacag ka daadanaysa isagii Elon Musk iyo Trump Gaza iyo okay ma xasuusta Saddam Hussein markii la riday ma xasuusta Saddam Hussein markii la riday ma xasuusta mataqaan sanabkiisi weynaa sanabkiisi ma xasuusta Saddam Hussein waa
waxaan waali ma aha miya yaa adduunka xagee ku socdaa seriously adduunka xagee anoo fahmi waaya adduunka meesha ku socda waxaa soo dhigay ninka xukuma waddanka ugu quwadda badan adduunka ya oo ugu lacagta badan oo ugu taajirsan ya oo hoggaankii adduunka loo maleeyo inuu yahay ya ninkii hoggaaminayay ayaa waxaanoo kale soo dhigaya la taliyayaal malmiya aaw la taliyayaashii qaranka teeda kale waxaa kala su-aala yaa weeye dadka ka dhaadhicinaya in uu waxaan oo kale uu samey yaa weeye dadka sawaad arkin dadka ugu horreeya oo bilaabay oo Gaza dib u dhiskeeda haddaa ka dhisno hoteelaha ka dhisi karna waa wiilka yuhuudka ah oo uu u yahay soddonka gabadhiisa qaba kushna la dhaho ya ayaa kow bilaabay wuxuu bilaabay taas wuxuu soo bilaabay 2018kii soo bilaabay ya in Gaza ay noqon karto meel aad u qurux badan beach front kulaha badday saaran tahay hoteelada because ugu isagana wiilkaas xitaa wuxuu ka imaaday dhaqaalaha reerkiisa wuxuu ka imaaday real estate sida Donald Trump oo kale ninkan wax aan real estate ahayn ma yaqaano wax aan dhismo ahayn ma yaqaano guryo dhis kaliya yaqaanaa sida madaxweynaha Soomaaliya oo kale mataqaana boosaska dhan intuu u qaato uu guryo uga dhisayo kale real estate waa isagana ninkan waa real estate kaliya yaqaana wax kale marka yuhuudiina waxay ka soo mareen maskaxdiisa waxay ka soo mareen dhankaas markuu kow imaaday waxyaalaha ugu horreeyay uu ku sameeyay waxay ahayd inuu ku dhaho baalkan uselesska Israel xukuma Netanyahu inuu ogolaansiiyo mataqaana heshiiskii uu ka diidi jiray Joe Biden inuu ku khasbo laakiin sida shaytaan oo kale wax muddo dhagta inay uga akhriyeen oo Gaza adaaba qaadan kartidba Mareykanka la ogyahay Mareykan ma qaadanayo ma fahamtay ya Mareykan waxa laga yaabaa hadduu maaragta xataa macnaheedu abdu Mareykan qaato waxa qaato yuhuudda qaadato weeyaan ya in marka dhaadhiciyeen ka waran Donald Trump oo haddii sabaad arkin dhulkii dhanba adiga lagugu wareejiyo magacaaga Gaza dhanba magacaaga ay qaadato dabakhiyaala adi leedahay hoteelo aad leedahay real estate laga dhisa meeshii sabaad arkin oo aaba noqotidba boqorka Gaza oo kaleeto farxad halkaas waxaa soo darta soo gelinaya videoga soo darta adduunka soo dhigaya ka waran waxaas daawo ya okay waa la bedel magaalada wuxuu u dhaxaysaa Dubai iyo Florida soo darkin ya Elon Musk uselesska qurunka badan niman naaga oo ego kaleeto computer lagu sameey madaxiisa weyn halkaas ya Trump Gaza soo arkin magaciisa uu jecel yahay inuu arko videoga dhan intaas waa laga yaabaa inuu soo dhigay meesha sanab isaga ah meeshaas sanabka fiiri waa kaasa sanab sida Xuseen ma khasata dhulka lagu jiidi jiray oo dahab weeye kan dictatorship daaftay subhanallah wallahi bila adduunka wallahi bila markaa sii joogtid waxba arkaysaa runtii okay isagiyo nacladii mataqaan yuhuudka ahaa fiir waa kaas ya isagii kii qurunle iyo xunka ahaa wallahi waa li waaye okay waxyaalaha ugu fanisan oo ka dhacay waxaa weeye dadka isaga la jira xataa baa yaabay waxay ku hayaan maxaa weeye qurunkan war waa maxay waxaana daawanayno waa dadka isaga la jiraya ayaa ka soo horjeesta xataa dadkiis isaga la jira ee soo doortay ee cunsuriga ahaa ayaa ka yaaban waxaanu soo dhigay saad arkin true socialkiisa haddaad tagtid waxa ugu su-aasha ugu horeysa waxaa weeye qof dhahayo kale war waa maxay waxaan qurunkan waa maxay what is this oo xaar lagu daray waa iska taqaanaa ma dhihi karne
Yeah. What is this حار oo kale? What is going on oo kale? We didn't sign up for this. This is not what we wanted. Wallahi, this is madness.